السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتا وإدين سلامة ميلو بأدونيدا كجوجتان مقعيقا وحفصة هاتيتا ميكي كوريس أجنالكيسو بوقاني فترة سبسكرايب إيسار هورا هدانو لجوجتو كمهاتسانتا بقولكيو بقول maanta waxaa idiin wadaa video yar oo kooban IKEA ayaan aaday maadaama Ramadaan soo dhow yahay wax yar oo ayaa ka doontay insha Allah isla socod wanaagsan kan IKEA ama IKEA af English lagu dhahaa taariikh yar oo kooban hadda idin ka siiyo dukaankan waxaa aasaasan nin Swedish ayaa leh sanada markay ahayd 1943 ayuu aasaasay isagoo markaa wiil yar ah oo 17 jir ah wax yar yarow ayuu ku bilaabay haddana wuxuu ku jiraa nimanka ugu taarijisan wadankan inkastoo isi dhintay laakiin wiilashiisa ayaa dhaxal ka qaatay wili dukaanka magaciisa wuu jiraa yani ma baabi'in IKEA wuxuu ku leeyahay 43 wadan adduunka dacaladeeda Afrika buu ku leena umaleena inta kale Asia meelaas uu ku leeyahay soo marka dukaankan waa caan marka anu kale حمر ونقال مخلي جرالاتنا كفتن لواي هرت سويدن وودنكيك لبات لمبركو وصومالي maadaama ku koray waxbarasho free ka helay waa wadankayga labaad waxa ma dhaamo wadankayga kale soo intaasna kaftan ay ahayd marka dukaankan ku soo dhawaada waa dukaan wallahi wax quality oo leeyahay hadana wixiisa qaali ma ahan waa iska raqiis IKEA qafkii taqaano اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام اللهم اجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا اللهم اجعله شهر عز للإسلام والمسلمين اللهم اجعله شهرا للنصر والتمكين للإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام اللهم اجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا اللهم اجعله شهر عز للإسلام والمسلمين اللهم اجعله شهرا للنصر والتمكين للإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين يا عبادي الضمه يجيو بايلهين ليحي يا عبادي سبحان الله نحريستي صب الارسنا قل يا عبادي الذين اسرفوا كوي مسرفين تاها ee naftooda ku xad gudbay ee 24 saac macsiyadii qaflada ku jiray hadii uu ugu yeeray ya cibaadi kuwa saalixiinta tukanayna maxaad u maleen magacu ugu yeeri lahaa فرعون وأوجيها إنه قال يحي إنه قال لما كل من يوجيها إنه أهل النار يحي وأوجيها أي موسى مركو أدري كلها فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى هذه فرعون ولايه موسى هذا اللي يرد بعسى كل هذا laga yaabaa inuu waadfoobu ilaahayna ka baqo soo noqday waa fircoon inaad dhimato ayaa u dhalatay inaad noolaato uma dhalan jannadaadi halkan maaha qofka muumiga jannadiisu aakhira weeyaan wixii ilaahay ku keenana ku raali noqdo ka faqriga loo qadaray faqrigiisu waa inuu ku raali noqdaa ka caafimaadka la siiyay caafimaadku waa inuu ku raali noqdaa ka awlaadda la siiyay awlaadda ilaahay waa inuu ugu shukriyaa ka awlaadda laga qabtay awlaad la'aanta waa inuu ilaahay ugu shukriyaa ka nabadgelyada la siiyey nabadgelyada waa ilaahay inuu ku gartaa ka cabsida lagu imtixaamay cabsida waa inaad ilaahay kaga cabsataa ka mas'uulka laga dhigay mas'uuliyadda ilaahay waa inuu kaga baqaa nabiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam baan ka maqlay isaga oo leh gabalku markuu dhaco
iyo marka waagu uu baryo ninka ducada akhrista allahumma anta rabbi laa ilaaha ilaa anta calayka tawakkalt wa anta rabbul arshi alkariim ma shaa allahu kan wama lam yasha lam yakun ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم waxaan ka maqlay buu ducada nabi maxamed oo yiri ninka galabtiina mar yiraahda subaxdiina mar yiraahda haduu galab ducada yiri ilaa waagu ka baryaayo masiiba kuma dhacdo buu rasuulku yiri haduu waagu markuu baryo uu yiraahdo ilaa uu ka galabaysanay masiiba ma soo gaadho ma la tamliku nafsun li nafsin shay'a yawma yanzuru al-mar'u ma qaddamat yadahu yawma la yanfa'u malun wala banun yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh يوم الجمع يوم التغابن يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم التغابن يوم الطامة يوم الساخة هبين ما مغليسد هبين كدون واكاس قيامها مركو إلهي كور رمايو ومالين وين هبين مال ومالين كليا وفي يوم كان مقداره 50,000 سنة يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يوم إلهي تبارك وتعالى يوم كاسنا قرآن كإلهي نوغو الشيغي وكنتم كنو صندود ابن عباس رضي الله عنهما مفسر كي قرآن كوحو كفسروا يري أفرتن كنو صنو على الجوغي توبان كنو صنو حسابتا كل ماني دون تبو يري أفرتن كنو صنو يا سيد الله تاغنان دونا إلا انت سو قارت فيديو كاغا محد علينا يا هدوكو عجبي فضل لايك نوصار هذا هدا قبت كومنتيغ نولو سو وداك أصحابتادا لسي شير غراي رمضان مبارك ولا لهي ميلو با دنيدا كجوغتان إلهي كوي كفائديست بشان خيريسان الله نغا ديغو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته